الله بإذن الله الكريم أبوانا الصوماليين أنت كرجينيان سفير كودي إلى النقطة وأن جدّين أنت إن قاضو مردو ولي بقى. waxaan rabaa ambassador inaan kaaga mahad celiyo kuguna ammaano kuguna duceeyo hawsha adag ee hayso dadka Soomaaliyeed abwaanka Soomaaliyeed waa wacyigelintii inaad ku darsato xil ilaa 10 wadan gaaraya waa mid ay ku faani karaan golaha abwaanada Soomaaliyeed sideedaba saad ogtahay golaha abwaanadu meel kasta oo joogaan nin kasta oo xil haya oo abwaana wuxuu ugu fadhiyaa qiimo gaar ah waxaan hubaa inaad shacabka Soomaaliyeed uga adeegayso si Soomaalinimo ah taasoo ah yaani abuurka ilaahay uu sameeyay dadka hal abuurka marka waxaan ku leeyahay hambaliyo xilkiisa midaan ka dhicin mar walbana guta ilaahay ka dhigo aad u mahadsan tahay runtii sharaf ay tahay maanta inaan abwaanada la joogo baan xirsi dhuux wax ma koobi karo dareenkayga waxay ila mid tahay abwaan xirsi dhuux gudoomiyaha golaha abwaanada inaan caawa la joogo 1996 markaan kula kulmay abwaanada xadraawi bushaas markaan kula kulmay ayay ila mid tahay abwaane sharaf bay ii tahay anigu hiilkayga ugu badan waxaan ka helaa runtii abwaanada Soomaaliyeed waxaan xasuustaa iyo shacabka dadka shacabka oo abwaane runtii ma cabsado codkayga aan shacbiga ugu cadgooyay curyaamada aniga u hadlaan cid u nooleyn arabkii masaakiintaan iyo culimada duubweyne cadligan kor yeelaa sidii caalim iyo sheekh waayeel caruur iyo haweenayaan ku caawimay codkayga nugleer uga daran cadawga koodaaye abwaane runtii waxaan mar walba ka helaa abwaaniinta Soomaaliyeed ayaan hiilka ka helaa hadeer ugu dambeysay anigoo saa u jiifa Tahraan ولح بلاد كل حيرنا رنتي لبدي أغسطس أنت لبدي بشي سديدات أيام واحد سوي محابيس والمدلح بلاد واحد كل حيرنا مقالات طهران عذر كي كوفيد 19 كو لوك داون كنا نقول دحي أنا جو دمنت فرورتك قرينية أو سلورنيه هو ورحتها واحد من اللي أجيه أبوان حرسدوحه ayaa wax ii hiliyay abwaanada Soomaaliyeed iyo waliba halkaan fursadan aan anoo kaligeyle oo markaan xoogaa daalaba baa waxaan leeyahay aniga ninay ma diree dabiirkayga ay fara wixii danta guud oo dadkaygu u baahan yahay markaasaan baa waxaan maqlay kalamaan baan dhageystay mise intaan madnaa iyo intaan u qalmin iyo in ka badanba ayaga amaalmarintii gudbiyeen ragaad adiga ku jirto marka runtii waxaan halkaan uga hambaliyaynayaa abwaan guure iyo tiimka kalamaan iyo radio kulmiye iyo dhammaan abwaanada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay intii uu maaragtay Nelson Mandela markii 23 sano ka bacdi la soo daayay Trafalgar Square 1990 anoo hortaagan uu yiri oo kale asagoo u mahadnaqaya dadkii daawaday ayuu wuxuu leeyahay I wish I can put all of you in my pocket and take you back to Johannesburg waxaan jeclaan lahaa inaan gidigin jeebkayda ku rito oo Johannesburg magaalada madaxda South Africa aan idin lahaa oo marka aan ku marti sooro marka I wish insha Allah بإذن الله الكريم abwaanada Soomaaliyeed intay ka rajeynayaan safiirkoodii inaan noqdo oo aan gidigin inta inaan qaado mardhow waliba aan insha Allah idinku casuumo magaalo aad u qurux badan oo la yiraahdo Dakar magaalo madaxda Senegal iyo 10 wadan oo West Africa oo anagu ku matalo shacabka Soomaaliyeed waxa weeye 30 milyan aad baan kaaga mahadcelinayaa abaan xirtiga jazakumullahu khayr thank you